qaar ka mid ah shaqaalihii maamulka hawada Soomaaliya ee ka howlgali jiray magaalada Nairobi ee xarunta wadanka Kenya ayaa maanta soo gaaray magaalada Muqdisho iyadoo uu soo dhaweeyay wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada dawladda federaalka Soomaaliya iyo mas'uuliyiin kale sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyahayaga Cabdishakuur Cali Axmed. in ka badan muddo 25 sano oo ay ka howlgalayeen shaqaalaha maamulka hawada Soomaaliya magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxa qaybtii ugu horeysay oo ka kooban 34 ruux maanta ay ku soo noqdeen dalkooda si ay uga howlgalaan xarunta ugu weyn maamulka hawada Soomaaliya oo magaalada Muqdisho ee caasimadda qaranka ay ka hirgelisay dawladda federaalka. wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar soo noqoshada shaqaalaha maamulka hawada Soomaaliya waxa uu ku tilmaamay inay marqaati ka tahay in Soomaaliya ay dib ula soo wareegtay maamulka hawadeeda. maanta waxaan marag ka nahay sidii aan ku ballan qaadnay 28 bishii December 2017 in hawada Soomaaliya laga maamulayo maalinta ka bilaabata laga maamuli karo wadanka gudihiisa inay maanta noo soo guureen shaqaalihii halbowlaha u ahaa maamulka hawada Soomaaliya. shaqaalahani oo ka shaqeynayay Nairobi ilaa iyo sanadkii 93 deganaa Nairobi 34 qof oo shaqaalahaas ilaa iyo 34 qof shaqaalahaas kamid ah ayaa maanta waxay u soo guureen wadanka gudihiisa si permanent ah joogto ah ay wadankani ugu soo guureen. wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada mudane Omar ayaa intaasi kadib waxa uu xariga ka jaray hoyga shaqaalaha maamulka hawada Soomaaliya waxaana uu ku dhiirigeliyay bilowga howshooda. halkani waa halka ay degayaan shaqaalaha hawada Soomaaliya ka maamulaya wadanka gudihiisa 25 sano kadib. waxaa farxad weyn inoo ah ummadda Soomaaliyeed iyo dhammaan inta Soomaalida jecel intaba in maanta hawada Soomaaliya laga maamuli karo wadanka gudihiisa. Dama Ahmed Muuse kusimaha maareeyaha hay'adda duulista iyo saadaasha hawada ee Soomaaliya iyo Cabdi Aadan Xasan oo kamid ah shaqaalaha maanta sida tooska ah ugu soo wareegay magaalada Muqdisho waxa ay sheegeen inay ku faraxsan yihiin muddo bil ku koobanna ay si toos ah u bilaabayaan maamulka hawada Soomaaliya oo laga maamulayo magaalada Muqdisho. waxay noqon doonaa insha Allah qalabkaas 30 ka shaqaalaha oo maanta yimid waxay gali doonaan tababar qalabka bishan gudaheeda marka bishan aakhirkeeda ama bisha dambe awalkeedana shaqadii oo live 24 saac ayaa waxay ka bilaaban doontaa hawada Soomaaliya garoonka caada insha Allah international tababarkaasi marka uu dhamaado sababtu waxay tahay qalabka halka lagu xiray uu ka casirsan yahay Nairobi marka dadkan waa dad khabiir ah muddo shaqeynaya laakiin waxay u baahan yihiin haddana qalabkii lagu tababaro. saad u wada aragtaan maanta waxaanu dib u soo noqday shaqaalihii muddo 25 sano maamulayay hawada Soomaaliya oo ka maamulayay magaalada Nairobi. halkan waxaan ka guurinay ragga waxaan halkan ka guuray 1994 markii UNISOM ay ka baxday Soomaaliya iyo UN iyo Mareykanka ka baxeen waxaan u wareegnay magaalada Nairobi. in ka badan 25 sano oo hawada Soomaaliya laga maamulayay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Soomaaliya waxa ay ku naaloonaysaa dib u soo wareegista maamulka hawadeeda oo qayb weyn ka ah ilaalinta xurriyadda iyo madax bannaanida qaranka. Cabdishakuur Cali Axmed, warbaahinta qaranka.